shaadiyo iyo walaalkii cabdifataax yare waxaan idin leeyahay reer faamili oo qurux badan baa tihiin ilaahay ilmo qurux badan buu idin siiyey kuwo kalena waad rajaynaysaan nabigeennu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka wuxuu cuni lahaa isaga oon cunin adduunkan kama tegayo dhaqaalihii ilaahay ugu talagalay isagoo helin kama tegayo ee fa ajmiluu adalaba nebigu wuxuu leeyahay hagaajiya kayfiyada aad ku dalbaysaan xoolaha iyo hantiga ilaahay idinku talagalay ayuu nebigeenu ina leeyahay sala allahu calayhi wasalam marka idinka waxaan idin leeyahay ilaahay baa idin siiyey waad ka kaaftoontaan heesaha joojiya dhalinyarada soomaalida ilaahay beryahan faraj ayuu u furay farajka rabbi uu u furay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah dhalinyaradii inay furtaan social media qaar waxay furanayaan facebook qaar waxay furanayaan youtube qaar waxay furanayaan instagram iyo wixii la mid ah kana sameeyaan dhaqaale iyo inay kaga joogsadaan tahriibkii dhalinyaradu sideedaba waxay jeceshahay socodka dalxiiska waddamada inay tagaan waddankan ka tagaan waddanka kala aadaan ayay jecel yihiin dhalinyaradu waxay jecel yihiin inay dhaqaale helaan waxay jecel yihiin inay guri qurux badan ku noolaadaan canug kasta marka uu soo korayo wuxuu rabaa guri qurux badan inuu ku noolaado noloshiisa wuxuu rabaa inuu waalidiintii wax u qabto wuxuu rabaa inuu noloshiisa wax ka bedelo iyo tawaalidkii iyo faamiligiisa hadduu reer leeyahay xaaskiisa iyo ilmihiisa inuu ka bedelo noloshooda wax inuu ka bedelo ayuu jecel yahay wuxuu inoo sahleen marka beryahan youtubeka iyo facebooka iyo instagramka in dhaqaalo laga suubiyo dhaqaalaha laga suubiyeyna dadka qaar wax xun bay ka suubiyaan dadkaasi xaaraan bay cunayaan dadka qaarna wax wanaagsan bay suubiyaan waxa wanaagsan maxaan ku xadidi karnaa matal ahaan waxaa ka mid a dadka dhallinyarada ee culummada ah ee ku soo gudbiya muxaadaraadka ee ku soo gudbiya qisaska ee ku soo gudbiya adkaarta iyo ducooyinka ku soo gudbiya iyo dhallinyarada kale ee ku soo gudbisa social mediaha entertainment iyo waxyaabo dhallinyaradu ay daawadaan oo farxad leh meelo qurux badan iyagoo jooga iyaga oo gurigoodii cunto samaynaya matalan gabdhihii oo cunto samaynaya qurux badan oo la daawanayo gabdhaha qaarkood kasii baranayaan inay cuntadii kayfiyaday u samayn lahaayeen iyo qaabkay u samayn lahaayeen ay ka baranayaan gabadhiina wax soo saarkeedii cuntada ku saabsanaa ay ku soo bandhigayso gurigeeda quruxdiisii ay ku soo bandhigayso waxyaabaha gurigeeda say u sharxayso ay ku soo bandhigayso arrintii nooca ahayd lacagna laga sameeyo dhaqaalana laga abuuro dhallinyaradii waxay u sahashay inay farxaddaas gobolkoodii iyo deegaankoodii ku joogaan tahriibtii iyo meelihii xumaa ay niyeysnaayeenna ay kaga joogsadaan waxaa kalooy awoodeen magaalooyinkii ay rabeen inay intay ka soo tagaan dhulkoodii ay u kacaanna magaalooyinkii inay si dhib yar ku tegi karaan oo qarashkii ay ka samaynayaan lagaba yaabo dhowr faloog ama dhowr fidiyow oo ku saabsan safarkooda iyo waddanka ay tageen inay dhaqaalihii go'an baagtiiba ay ka soo celiyaan marka arrintaas waa arrin farxad leh runtii qolyaha heesaha ku sameeya ee lacagta heesaha ka sameeya ama cayda ka sameeya ama waxyaabaha xunxun ka sameeya iyagu waa waddo gooni ah ka samaynaya wuu og yahay waxa xun ee uu samaynayaa inayna fiicnayn lacagta uu ka sameeyaana inay xaaraam tahay wuu og yahay oo culimmaduna way ka dhargisay isagana fitra islaamiya yaa ku beeran oo wuu og yahay walaalkaasi waxyaabahan marka aad ugu farxa waxaa ka mid a aniga ka dhalinyaro ahaan waxaan aad ugu farxaa markaan arko gabdha qurqurux badan wiilal qurux badan faamili qurux badan oo noloshoodii ka dabaray oo dalxiiskoodii ka dabaray markaan arko runtii xaqiiqatan aad baan ugu farxaa waxaanan jecelahay mar walba inaan ku dhiirigeliyo ayaan jecelahay hadda ka hor waxaan jeclaan jiray mar walba inaan dhiirigeliyo dhalinyarada noocaas oo kale ah laakiin waxaanan haysanin meelahan u marin jiray waxaan go'aansaday marka inaan social mediaha intaan dhexdiisa la galo inaan ka dhiirigeliyo waxa wanaagga ay samaynayaan ku dhiirigeliyo ayaan go'aansaday marka dhalinyarada tusaalaha mudan waxaa ka mid ah dhalinyarada idiin muuqata gadaasha idinka muuqata ayaa ka mid ah waa walaasheen shaadiya sharaf walaalkiin cabdifataax oo saygeedii ah ayaa ka mid ah iyo dhalinyaro fara badan runtii xaqiiqatan oo barnaamijtoodii iyo barnaamijyadooda aad u dhegaysto oon halkan lagu soo koobi doonin oon rabo inaan dhammaantood ka wada sameeyo
fideoya ka sameeyo aan ku dhiirigelinayo dhanka wanaagga ku dhiirigelinayo iyo horumarka iyo wanaagga ay samaynayaan, kana waanin doono insha allah wixii xumaan ahay lacagtaa ku kasbanayaan. lacagta ay kasbanayaan runtii gabdhaha iyo wiilashaaba waxaan leeyahay wax xumaan ah ha ku kasbanina. mathalan markaad gabdhiyo wiilal aad isla samaynaysaan video ajnabina aad kala tihiin, waan ku ammaanayaa runtii qurux kudhigli iyo tiimkiisa. runtii aad baan u jeclahay qaabka ay sameeyaan oo inayna ikhtilaad samaynin ah. hadda kadibna waxaan leeyahay sii dadaala oo dadaal sii muujiya, kala fogaansho space dhexdiina geliya, si shareecadeenna islaamka aad ugu dhaqantaan, shaqadaad qabanayseen iyo horumarkaad samaynayseenna horumar xalaal ah oo wanaagsan u noqdo. qolyaha heesaha ku dhex dara waxyaabo wanaagsanna sameeya, heesahana ku dhex dara sida walaashay shaadiyo iyo walaalkii cabdilfataax yare, waxaan idin leeyahay reer family oo qurux badan baad tihiin, ilaahay ilmo qurux badan buu idin siiyey, kuwo kalena waad rajaynaysaan. runtii way idinku filan yihiin inta aad xalaasha ku samaysaan iyo farxadda iyo maaragtay qurxinta aad ku samaysaan iyo waxyaabaha bannaan. inta xumaanta iyo heesaha ku saabsan walaalayaal iyo aboowe iyo abaaye iska dhaafa, ilaahay baa idinka kaafinaya subxaanahu wa tacaala. nabigeennu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, qofka wuxuu cuni lahaa isaga oon cunin adduunkan kama tegayo, dhaqaalihii ilaahay ugu talagalay isagoo helin kama tegayo. fa ajmiluu adalaba, nebigu wuxuu leeyahay hagaajiya kayfiyada aad ku dalbaysaan xoolaha iyo hantiga ilaahay idinku talagalay, ayuu nebigeenu ina leeyahay sala allahu calayhi wasalam. marka idinka waxaan idin leeyahay ilaahay baa idin siiyey, waad ka kaaftoontaan, heesaha joojiya, heesaha iska dhaafa, waxaad samaysaan entertainmentiga iyo waxyaabaha maaragtay farxadda leh eed marar badan suubisaan een idin daawano sameeya. wallahi idinma daawado markaad heestaan oo kale, laakiin mar kasta oo xataa guri qurux badan aad soo bandhigaysaan, xataa aad baraankii isku samaynaysaan, waan jecelahay, waan daawadaa runtii. laakiin de wixii xumaa lama ogolo inaad daawato, oo heestu waa dembi. heesta lafteeda haddadayna muusika lahayn, dadna aan lagu caayaynin, ayadana waa la ogol yahay, waa la ogol yahay. laakiin waxa xaaraamaynaya waa maxay? jidhkaagii inaad qaawiso waa xaaraam, wuu xaaraamaynaya, oo jidhkaagii timahaagii cawradaadii la arko adoo gabar ah. waxaa kaloo xaaraamaynaya muusikada, oo diinteennu waa inaga reebtay muusikada. kulligiin waad wada taqaanaan, inta heesta way ogtahay inay xaaraam tahay, muusikadu inay xaaraam tahay, kulligood way wada og yihiin. muusikadu waa xaaraam, aynu iska ilaalino walaalayaal. waxaynu ka helnaana xaaraam weeye. wax kastoo hilib ahoo jidhkaaga ka soo baxa iyo maro kastood xidhato oo xaaraantaa ku soo baxayna cadaab baa lagaaga goyn. aan ka toobadkeenno, toobadkeen. gabdhaheenni walaaladeen ahaaye ka toobad keenay, iyo wiilasheenni walaalaheena ka toobad keenay, kulligooda liibaan aakhariyo liibaan adduunna way gaadheen, tu aakharana way rajaynayaan. marka maxaynu ku falaynaa hees? ilaahay bayna siiyey intaad maanta faloog yar soo samayso inaad dhaqaalo badan ka samayso. 10 faloog, 15 faloog, 20 faloog ood samaysay bishii ayaad dhaqaalo weyn ka samayn kartaa, qurux badan, ilaahayna subxaana wa tacaala xaaraanna ayna kugu noqon karin. marka labada aynu iska ilaalino, heesaha iyo waxyaabaha ikhtilaadka gabdhaha iyo wiilasha isdhex fadhiisanaya. laakiin wixii xaaraam ah kulligood waan wada naqaanaa. ummadda soomaaliyeed dhallinyaradooda kulligood way yaqaanaan waxa xaaraamta ah, waxa xalaasha ka ah, iyo diinta islaamka ay kusoo barbaareen, dugsi bay soo wada mareen. markaad faloogyada samaynaysaan waad ka sheekaysaan, dugsigii macalin hebel aan soo marnay waad ka sheekaysaan. kulli intaasoo dhan xaaraamtii xalaashi baad kusoo barateen, dhaqan bay inoo noqotay, waynu garanaynaa. inta xaaraamta iska ilaaliya, wixii xalaalana waa lagu ogol yahay. xayeysiiska waad aragteen, qaybta xalaasha ah baad dooran kartaa, wixii xaaraana waa iska goyn kartaa. wixii xaaraana iska goy xayeysiis ee lagu saaraya sida khamrada, naaga qaqaawan haddii lagu xayeysiinayo, waad adaa ay kugu xidhan tahay inaad dalbato wax alla yaala wixii xalaal ah. wixii xaraamaana aad diidoo tirahdo ma rabo, waxyaabaha ayaan laygu xayeysiinin, idan xalaal buu saa ku noqonayaa. marka ila daawada walaalayaal, dadkan quruxdooda cabdifatax yare iyo marwadiisa shaadiyo waa dadka guusha ka sameeyey. in yar baa idinkaga dhex jirto heesaha iyo waxyaabaha, joojiya intaana. insha allah waxaan rajaynaya inaad joojin doontaan. 2 qof oo mustaqbal qurux badan le baad tihiin. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala mustaqbal qurux badan idinku kulmiyey, iyo dhaqaalihii iyo guri qurux badan. maasha allah, joojiya heesahana, intaana waad ka kaaftoomaysaan, welibana bedelkeedii oo khayr qabaa durbe helaysaan. waxaan rajaynayaa inaan helno cabdifatax yare walaalkeen oon aad u jecel lahay, iyo walaashan shaadiye oo dhahay annaga heestii waan joojinay, inaan helno insha allah ayaan rajaynaynaa.
marka joojiya heesta insha allah ilaahay idamkiisa wax xalaal ah oo xalaal ah buu idiin noqon doonaa meel kastana adduunka damaashaad baad ku tegaysaan marka joojiya waa bishaaro dhalinyarada kale ee idin soo dhaweysa iyagana waa maasha allah qurux sida lagu soo dhaweeyey ee nairobi loogu soo dhaweeyey waad aragtaan bal daawada nairobi baa loogu soo dhaweeyey sidaa quruxda badan shalay ma la helaynin in dhalinyaradu sanoo kale isugu soo dhaweyso ama dhaqaale ay u helaan ay isku soo dhaweeyaan ay ku dalxiisaan oy waddamo kale ku tagaan shalay waxaa lagu soo dhaweynaya turkiga oo dhallinyaradeenii walaaladeenni soomaalida ku soo dhaweynayeen shaadiye sharaf iyo cabdifatax yar cafwan aniga habeenaan soo xanuusta maal cadee imaaday meelo kale iyo adduunka meel walba waad mari doontaan idinkoon tahriibin laakiin heesaha inaga ilaaliya heesaha aynu joojinno marka sawiradiina aan soo qaadanayo iyo magaciina aan soo qaadanayana walaaltinimo iyo jacayl aan idiin qaba runtii dhammaantiin intiina magaciina aan sheegay iyo in kaloo fara badanba waan dhegaystaa barnaamijtiina fiican ee quruxda badan ee entertainmentiga ahee farxadda ku saabsan waa idin dhegaystaa runtii xaqiiqatan waa dhalinyara aniga da-dayda abaad tihiin aad baan u jeclahay inaan idinku daydo aniga lafteeda social media aan idinkula soo biiray laakiin wax kasta oo khaldan baan rabaa insha allah inaan saxo wax kastoo wanaagsanna idinkaan idinkaga dayanayaa isku mid ban waynu nahay waana soo wada bandhigaynaa insha allah wax kasta oo xalaal ah wax kastoo xaaraam ana kulligan waan ka wada fogaanaynaa waana isku baraarujinaynaa quruxdiinna iyo sharaftiinna iyo shalay waxaad soo marteen iyo maanta halkaa taagan tihiin ilaahay baa ilmo idin siiyey ilaahay baa guri qurux badan idin siiyey dhaqaalahaad ku noolaan lahaydeen waa kan gabdhaheenii shaadiye sharaf shalay waxay noo soo duubaysay falowgii quruxda badnaa ee nasre abdidoon ay ka soo duubaysay dukaankeedii xaggee laga sameeyey marka maasha allah waxaan idin leeyahay waan idinku dhiiri gelinayaa wax kastoo wanaagsan oo social media lagu soo bandhigo ama youtube ha noqdo ama tiktok ha noqdo ama ha noqdo facebook ama ha noqdo instagram ama ha noqdo mid kale social media kuwo kaloo cusub baa soo bixi doona wax kastoo lagu soo bandhigayo oo wanaagsan waa wanaag dhaqan wax mubaaxa buu noqon karaa wax sunna ah buu noqon karaa wax waajiba buu noqon karaa laakiin maxaan la ogolayn waxa xaaraanta iyo waxa karaahada ah waan iska dhaafaynaa heesaha waa xaaraam waan iska dhaafaynaa muusikadu waa xaaraam waan iska dhaafaynaa ikhtilaadka gabdhaha iyo wiilasha ajanabiga ay jirkooda istataabanayaan waan iska dhaafaynaa insha allah way naga xaaraamaynayaan maadaama oon laga yaabo idinkoo istataabanaya intaa in ama labadii qof oo jirkoodii istaabanaya inay lacag aad ku helayso intaas xaaraam bay noqonaysaa waan kala fogaanaynaa space yar baan kala qaadanaynaa barnaamijkii waan wada wadi karnaa marka sidaa hala sameeya insha allah wixii khaldan oo dhanna insha allah waxaan isku dayayaa gabar kasta oo ama heesta ama wiil kastoo heesa ama wiil kasta oo ikhtilaad iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo isku dhex jira ah waan baraarujin doonaa insha allah marka soo dhowaada nairobi ku soo dhowaada waa idin daawan doonaa wax xun un hanoo keenina iyo heesa un hanoo keenina